Baredo platform ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabatay dood ku saabsan sidii dawladda hoose ee Xamar uga faa'iideysan lahayd adeegga dadweynaha iyada oo loo marayo internetka kaas oo loogu magac daray e-government. Waxaa ka qayb galay doodan gudoomiyaasha qaar ee degmooyinka magaalada Muqdisho, agaasimayaal, ardayda jaamacadaha dalka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho. Gudoomiyaha degmada Dharkeenley Guhaad Sheekh Xasan oo ka mid ahaa xubnihii ka qayb galay doodan looga hadlayay e-government ayaa sheegay inay muhiim tahay in la daadajiyo adeegga dadweynaha iyada oo loo marayo internetka kaas oo uu yiri waxa ay bulshada u fududeynaysaa inay helaan adeegga dawladda iyaga oo gurigooda jooga. dawladda hoose ee Xamar barnaamijkan hadii uu yahay barnaamij laga saacidayo oo fan la fangareynayo dad loo tababarayo laga shaqaysiinayo baahi weyn oo qabnaa dawladda hoose ahaan sababtoo ah in la jaan qaadno caasimadaha kale shaqadeena ah haddii Addis Ababa ay ka shaqeynayso population-keeda badan yahay Xamar population-keeda hadda 4 milyan lagu qiyaasaa laakiin sanadkan waxaan qiyaasaynaa 7 milyan aan gaarno maadaama abaarihii iyo wax badan laga soo barakacay magaalada aad loo soo galayo xataa dadka inaan diiwaan gelin u baahannahay diiwaangelintaas inay saacid kartaa marka barnaamijkan waa soo dhaweynaynaa waxaan rajeynaa dad badan oo khibrad u leh joogan oo barnaamijyadan aad uga shaqeeyaan dadka cilmiga u inay barnaamijkan input ku daraan laakiin si guud in barnaamijkan la helo dawladda hoose way soo dhaweynaysaa. Gudoomiyaha degmada Shangaani ee Muqdisho Aweys Camuudi ayaa isagana sheegay in waqtigii loo baahnaa la joogo in la dhaqan geliyo adeegga e-government. System loo baahan yahay waa runta xaqiiqada marka loo hadlo intaan la gaarin ka hor waxaan ku shaqeey jirnay waaxdan anaga raafta hadda oo dad digida ah intaysan hadda xawligan aysan yeelan hadda waxaan u maleynaa magaalada Muqdisho hadda anaga raafta ka furan tahay oo waaxda digida ah oo dhalashada iyo sugnaanta laga qaataa laakiin gobolada ma jirto qofka wuxuu qaataa warqad maxkamad uu ka qaataa kadib wuxuu tagaa immigration wuxuu ka soo qaataa baasaboorka waa marka loo daadijiyay maaragtay meesha la yiraahdo gobolada ama maamul goboleedyada dhalashadaas sugnaantaas dawladda intaysan bilaabin ka hor iskuulaadka ardayda waa lagu xujeyn jiray waxa la dhigi jiray keena aqoonsigiina si loo ogaado xilliga aad dhalatay fully familial aftaliyaan lagu yiraahdaa hadda waxay noqotay marka in wixii ay fahmeen dadka systemkii lagu adkeeyay ardaygii iskuul la geynayo kii jaamacad tagayo kii passport doonanayo kii ID doonanayo kii maxkamad warqad ka doonanayo inuu fully warqadaas u qaato way dhaqan gashay. Maxamed Abuukar Ismaaciil oo ah executive-ka director-ka Baredo platform ayaynu wax ka weydiinay kadib gabagabada kulanka ujeedka doodan iyo sida uu bulshada muhiimka ugu yahay e-government. maanta dooddu waxay ku saabsanayd maadaama adduunku isbedel uu ku yimi dhanka technology-ga taas oo internetkii maanta dunida daafeeda meel walba uu ka gaaray heer qiimo jaban in lagu isticmaalo ayaa dunidu la isla qaatay in baahiyaha iyo adeegyada ee dawladdu bixiso in loo wareejiyo hab digital ah ama e-government loo yaqaano taasoo sahlaysa qofkii muwaadinka ahaa isagoo gurigiisa jooga inuu ku helo adeegyadiisii dhammaan si fudud isagoo aanan tacab iyo aanan tegin xafiisyadii dawladda sidoo kale arrintaas oo iyaduna aad hoos u dhin ku samaysay dhanka musuqmaasuqa oo aad isaguna dunida maaragtay la dagaalan weyn lagula jiro marka haddii aanu nahay Baredo platform maanta halkan waxaan ku casunnay oo si wada jira aan wada tashi u sameynaynay agaasimayaal gobolka Banaadir sidoo kale gudoomiyayaasha gobolka Banaadir iyo bulshada rayidka iyo wariyayaal iyo jaamacadaha gobolka Banaadir halkaas oo aan isla fiirinaynay xilligan la joogo maadaama aad u sarakac ugu jiro adduunka COVID-19 adeegyada lagu bixin karo e-government ayaan maanta isla lafagurnay halkaas noo soo baxday dhowr adeeg inaan ugu horeyn ku bilowno taas oo haddii noo hirgasho insha Allah aan ku xijin doono dhammaan adeegyada inta kala dhiman. Sanadihii u dambeeyay dawladaha adduunka waxa ay si xawli ah u bilaabeen fududeynta iyo casriyeynta shaqada iyo adeegsiinta muwaadinka iyagoo ka faa'iideysanaya tiknoolajiyadda casriga ah iyo internetka hayaankaas oo loo bixiyay e-government. E-government waa eray tilmaamaya nooc kasta oo shaqo ama adeeg dawladeed oo ku tiirsan tiknoolajiyadda casriga ah laguna fuliyo internetka. Adeegyada e-government waxyaabaha suurtageliya waxaa ka mid ah
in adiga oo isticmaalaya kombiyuutarkaaga ama moobilkaaga aad adeegyada dowladda hesho sida inaad codsato kaarka caafimaadka, warqadaha dhalashada, laysimada kala duwan ama bixiso canshuurta adiga oo jooga gurigaaga oo aan tegin xafiisyada. Faa'iidooyinka e-government laga helo waxaa ka mid ah adeegsiinta muwaadiniinta oo fududaata, horumarna samaysa, xog isweydaarsiga iyo xiriirka muwaadinka iyo dowladda oo tanaada, dowlad wanaagga, yaraynta musuqa iyo daahfurnaanta oo fiicnaada. Xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa ku riixay dowlado badan inay adeegsiinta muwaadinka ku bixiyaan tiknoolajiyadda casriga ah iyo internetka, adeegyo badan oo muwaadiniintu u tegi jireen xafiisyada dowladda.